بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عشر كانت امتحانها يعقوب الجرني وحنكسر بحني شروط صحة الصلاة قبل الدخول فيها. صلاة أنت لا جودك من شروطها إلا ده. هذا حنقلنا أركان الصلاة هي الصلاة هذا هي كذا. حنقرأ إن شاء الله يا أخي درنا. فصل أركان الصلاة. صلاة أركان 18 سدير يتبان واي ركنا من ركن وركنا سدير يتبان ركن واي. وهذه ضمانينة دولة حسابه أفرت ضمانينه أركان مستقلة. نية الخروجنا وقدر شيخ إن ركن أويه كان راجح ورأي مرجوح كاس راجع أويه نية الخروج نسم كمدهين من أركان الصلاة. صلاة أركان كمدهين كمدهين من السنن ومن هيئة الصلاة. مروح أركي دونتا إن لقت تريو تسكير ولي رهدو تضوى يتمرق نوعي كتاب قارق دبا. أركان الصلاة 17 ركنا. مركزنا نية الخروج هي مش على قصاره سيراجع يكسوط. وعارك دونتا إن لي رهدو 14 أفريطون هدي لغا ديغو وصحيح ضمانينادو oo dhan maadaama magac ضمانينه ay qaadato hal rowna ka soo qaad afarayno ahayd marka hore ayadana hal row isku geey meesha niyatul khuruj meesha ka saar. haddii niyatul khuruj meesha ka saarno afar ضمانينana hal ضمان soo qaadano oo dhahno sida sujuudku aan leenahay السجود ركن واي هل سوق هذا بس سجود واي هل سجود ركن الله سوق هذا ما دام ما حل ما اسلو ذا السجود الضمانين انا حق سوق هذا مركز وا افريه طبعا. ان 13 in laga dhigay way jirtaa arkaanta. haddii 13 laga dhigana ضمانينة waxaa laga dhigay hay'atan taabicatan lil arkaan al-arba'a. afarta rugni ضمانينada leedahay afarta arkaan oo ضمانينada ay leedahay ayaa waxaa laga dhigay ضمانينadu waa hay'atan taabicatan laha arkaantaas ayay waa qaab arkaantaas raacsan. marka mawla loo xisaabaya la soo gelina maxaa yeelay haddii rukuuca iyo ictidaalka iyo sujuudka iyo julus bayna sajdatain afartaas ضمانينada ayaa loo shardiyaa aad raacayso. haddii arkaan rukni mustaqbal laga dhigana kuwaasi daba jooga, haddii hay-ad laga dhigana kuwaasi raacdaa. marka ruknigaas oo rukuuca waxaa leeyahay rukuucii haddii aad jilbaha qabsatid aad isjimayso jilbaha aad qabsatid ama jilbaha gacmahaada meel ay gaarayaan aad geysid rafcigaada oo soo laabanaysid iyo huwiyadooda oo hoobanaysid waa inay kala socnaadaan. haddaysa kala socnaanin rukuuci ma ansixin. muga kala socnaashadaas ayaa ضمانينة loo yaqaana ضمانينة. marka waa wax oo rukuuci uusan ansixaynin la-aantiis. marka waa hay-ad iyo qaab raacayo rukuuca iyo sujuudka raacayo. haddii saa laga 13 rukni ay noqonaysaa. marka hadda waxaan ku soconaa 18 rukni waayay laakiin ra'yi marjuuxa ku jiro niyatul khuruuj salaada inaad ka bixaysid inaad niyeysatid waxaa ma ahan rukni sida raajix ah. waa si kastaba ha ahaatee waa tirinaynaa النية ugu horeysa النية niyo ugu horey waa النية salaadii ayaa niyeysanaysaa
markaad niyeysanaysid waa saddex maraatib waa salaada inay tahay salaad farad ah. salaad farad ah hadday tahay waxaa niyeysanaysid waa saddex shay. waxaad niyeysanaysaa faradkii iyo salaadii ficilkeeda, ficlu salaa waa niyeysanaysaa. ficlu salaa iyo faradkii iyo inaad qeexdid waxay tahay waa duhura, casira, maqriba, cisha. saddexdaas shayaa laga rabaa. haddii farad tahay waa. haddii sunno tahay sunnada laba waa. sunno waqti leh ama sabab leh sida raatibada oo kale duhurka wax ku raacayo, casarka raacayo, amba waxa waaye salaad waqti leh sida ciid oo kale, labada ciidood salaad ama sababay leedahayba, waqti ma lahay sababay leedahay sida roob doon la rabaa, qoraxdii aa madoobaatay, bishii aa madoobaatay, waxyaabahaas salaadahaas laba shay aa niyeysanaysaa. faradka waxaa saddex shay waqtiga ugu weyn salaadahan waqtiga leh, sunnaha ah waqtiga leh waxaa niyeysanaysaa salaadii waxay tahay waa caynaysaa. haddii kusuuf ay tahay, haddii khusuuf ay tahay, haddii istisqa ay tahay, haddii ay raatibatu duhur ay tahay waa caynaysaa. ficilkan waa niyeysanaysaa, labadaas ficilkan waa niyeysanaysaa inaad salaad dukanaysid. afcaasha aad samaynaysid inay tahay salaad. salaadan magaceeda uu yahay fulaan waa sheegaysaa, ana waa niyeysanaysaa. haddii ay tahay salaad mudlaqa ah, waqtina sunno waay, waqtina ma laha, sababna ma laha, inaad ilaahay isaga dhawaataa u rabtaa, bistaas ficilka iska niyeysanaysaa. inaad salaad ficilka aad samaynaysa inuu salaad un yahay. niyadana waxaa la yidhaahdaa sharciyan waxa waaye qasdu shay muqtarin bificlihi. shaygan oo qasdiisa inaad samaysid ficilkan waa la xariminaysaa. maxalkeedana waa qalbiga ay ka dhacdaa. haddaa qalbiga ka niyeysan laakiin carabka ugu dhawaaqday wax kama jiraanba, qalbiga bumahaysid. maxaa ijmaacan waa qalbiga. carabka culamada qaara dhaheen bidco waaye, watalafudu bihaa bidca, lakin culamada talafudu bihaa sunna. carabkaas wuxuu saacidaya dheheen, carabkaas wuxuu saacidayaa qalbiga, waxaa qalbiga shatay. haddii aad kusii dhawaaqdid waa wax kasii fiican oo sii wanaagsan. marka sidaasay sunno u dheheen. culamada dhahaan bidca dhahaan waxayna nabiga lagama hayo, isagoo ku dhawaaqay nabiga lagama hayo. marka khilaaf weyn meeshaas kama jiro. anniya tan ugu horeysa waa niyada. waxaa soo sheegna meesha ay ka dhacdo, waxa loo yaqaano iyo waxa la niyeysanayo. in lagu xeel dheeraado qofka waswasata shaydaanka ka dhalatana khalad waayo. niyada meel dheer kuma jirto, baciid maaha. waa kaliya haddaad soo istaagtid waxa afcaasha aad samaynaysid ma afcaal caada ahaa oo jimicsi miyaa samaynaysaa, jilbaha qabsanaysid, jimicsi istaagaysid, waxaas jimicsi miyaa masnoo ah maahane waa salaad ilaahay kugu waajibiyey, salaad ilahay u dhawaanaysid. intaas leewa. marka ficilkan aad samaynaysid inuu yahay salaad. ficilkaas aad samaynaysid inay leedahay salaad farad ah, farad oo yahay farad inuu yahay. faradkaas way badan yihiin faraaisha. faradkaas badan duhur uu ka yahay, maya casir uu ka yahay, maqrib uu ka yahay, cisho uu ka yahay. waa intaas. marka meel dheer ma jiro. dadka dhaheen salaadu allahu akbar ayay ka xirantaa waa sax. waa niyeysan, niyan ka horeyso waa niyeysanaysaa allahu akbar aa leedahay. laakiin adigoo niyeysan allahu akbar ma jirto. adigoo waxba niyeysan allahu akbar iska tiraahdid wax kama jiraan waay salaada. niyada waa waajib, rukn ugu horeeyo waayo. waa niyeysanaysaa kadib allahu akbar leedahay.
qasdu shay muqtarin ficli waa markaa guri ka soo baxaysay ayaa niyeysnayd aan salaad dukan, laakiin markaa soo istaagtay intaa dhex sii socota wax kaa ka fikirtay waaba tagtay niyadaas. taas waxaa leeyahay alcazmu go-aan waaye ee markaad niyeysato waxaa leeyahay ficil saxiixa. markaa guri ka soo baxaysay ilaa aad ka istaagtay ilaa aad alla ka tiraad ay ku xiriirsan tahay dhib ma laha, laakiin haddiisan ku xiriirsanin salaadaada ma jirto. marka dadka aad u fududeeyeenna waxaa waaye xirisiya ayagana in niyadaba ka tagaan, niyadaba in ka tagaan. marka niyada ha ka tegin, hana ku tarax tegin oo waswaas yuusan ka dhalan, waswaas shaydaan yuusan ka dhalan. waswaaska in qofka xoogaa waswaas yar oo galo waxaa la yihahdaa inuu qalbigiisa eber yahay tustaa horta, laakiin waswaaska badan maya. qofkaan shaydaanka inuu ku dadaalayo oo salaadiis ay saxiixa tahay uu ku dadaalayo inuu lumiyo oo ka waswaasiyo uu isku dayayo kutusaysaa, laakiin hadduu ninkaan salaadiis inay ansixaynba ujeedo oo isku shidaynayo. marka qofka inuu xoogaay inaadan xirin maxooga waswaas yar galo dhib ma laha. taas waxaa waaye ka warqab, waxaa waaye shaydaanka ka warqabtaaba inuu ku taabanayo maxaa la yihahdaa salaadaadana waxay u tahay inay ansixaysay ayay calaamad u tahay, laakiin waswaaskiisu ugu badan iska jar, la dagaala aad ula dagaala. waayahay kan labaad waxaa alqiyaam maca alqudra. alqiyaam istaag maca alqudra, awood micigeeda xaal u yahay. haddii aad awood u leedahay istaag, haddaad awood u lahayn iska fadhiiso, haddaad awood u lahayn iska jiifo dhib maaha, laakiin haddii aad awood u leedahay fadhi ma jiro salaad haddii faraltaan ka hadlaynaa. waayahay tan labaad waxaa waaye tan saddexaad takbiiratu ixraam. oo takbiir ixraam xirasho takbiirteed, takbiirta waxay tahay allahu akbar, waa inuu saas ahaato allahu iyo akbar. magac kale kuma bedeli karta, allah arraxmaan kuma bedeli karta, akbarna acdan kuma bedeli karta. allahu ziyaadaha gelin, allahu akbar ha dhihin, allahu wa akbar ha dhihin, wax ziyaadaha gelin. allahu akbar, akbartaas wax ziyaadaha ku sameyn, alif ku ziyaadin, akbar ha dhihin. bacda ha shidin, akibar ha dhihin, sida ay tahay allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, akbar. dadka waxa ku ziyaadayso alif ha ku ziyaadan, allahu akbar waad allahu akbar. haddii kaafka uu ku areebtina shid ma imaanayo, markaas shidka imaana waxa waaye kaafkii xarakaysay, akabar. waayahay takbiir ixraam. tan kale waxa waaye wa qiraa'atu alfaatixati, faatixa la akriya. faatixada qofka uu akriyo haddii uu leeyahay waxaa dhici karta qofka inuu haddana soo islaamay faatixa uusan xafidsaneyn, wax kale nousan hayn, marka qadarkii iska istaaga intuu ka baranay salaad ma dhaafay, qadarkii u istaaga. laakiin qofka markuu yaqaan wax kale ma bedeli karo. qiraa'atu alfaatixa inuu faatixa akriyo rabo, si sax u akriyo, si suu xigto usoo xijiyo, shid uusan ka tegin, xarf uusan ka tegin. waxaa ugu dhib badan xuruuf oo dhib badanaa jiraan, xuruufta dhibka badan qofka uu iska ilaasho, sida daadka oo kale, qaaf qeynka kale qaaf marka ka dhigaan, qaafkay ga ka dhigaan oo ga mustaqiim camal. alxamdulilah alhamdu ay dhahaan oo kale qaarkood. waxaa waaye waxaasoo dhan xuruufta iska sax. daadka ugu daran, daadka waxaa waaye qof kasta u dhibaa. inta ugu dhawaaqday nabiga ugu fiicnaay afsaxul carab ahay saa dhahay anaa ugu fasixnimo badan waxaa raba marka daadka waa carabka dhinaciisa oo goosaha dhinacooda la saaro kusoo baxaa, kama soo baxo daadka faruurahan kama soo baxo laad la dhihi maayo. carabka wadiisa la saaro halkan kama soo baxo laad carabka dhinaciisa ayaa goosaha la saaraa gudaha ah waladaalin غayri lmawduubi qofka haddii uu daadkiiba sida da iska dhabaaqo ladaalin
سيدا أصحى أما أصحيسو لكن قول وعلي هذا قلت صحيح وليه وأصحى أساسا وهي هاي قفك هدو كعذر تورو وقونت لكن وإنه برتا وكود ذا دوس كعذر تورو برتا هدو كعذر تورو وقوني إلهي وغفور رحيم دوس كعذر تورو عبرتو وهي هاي فاتحة الآخر وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وآيات فاتحة كميدة لا تجي مكروه لا تجي مكروه والركوع وهي الركوع جلبها اللقب صدو قفك إنه سوق الله عضو جلبها هير إن كعمها دو قبطة بقرة إنه قبطة صنوة لكن إنه هالكاس جارسيا حوالي سو إن هالكاس إنه جارسيا واجب واجب ركن واجب والضمانية حصلت فيه في الركوع ركوع وحسها والاعتدال اسجمين كاش اسجمين واي والضمانية حصلت فيه في الاعتدال وحسها اسجمين تقف انه لبركيس التوسية يعني نحكي نظمها انتو التوسية نحكي نظمها لكن التوسية واي كون حسنها والسجود سجود واي سجود هو وجه ركوع والضمانية حصلت واي في سجود حصل يجيب لك رجيسة خلاص أقول لك رجيسة يبقى لك رجيسة وكامل كساسوا اللغة فرغ هذا لك رجيسة فرغ هذا قاعد كمان شعار لك رجيسة والجلوس فلي بين السجدتين لبس سجود لحظة لا فريستو لبس سجود عند لحظة لا فريستو أصل السجود كده سافريستو والضمانيات كحصل بها في السجود كده حصلوا والجلوس فلي الأخير وضمه فريق للتشهد أتعاد لا فريستو أتعاد وضم والتشهد أتحياد وفيه في الجلوس الأخير فرق الدم الأحدث هو أخر أتحياد وصلاة الصلاة على النبي نبي صلى الله عليه وسلم فيه في التشهد معنا بعد التشهد أتحياد كذب صلي أتحياد مرة حجر أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم marka اللهم صل ذا صحواي قولني ومركو عليه فيه ناس بمعنى بعد فيه في التشهد بعد التشهد أتذكري والتسليمة سلام نقص الأولى وهو سلام نقص وهو الريو سنو ركن كان لبعض لكن سنة وهي وهذا والنية خروج بحد نية ذوال من الصلاة على محمد السلام عليكم أترد إن ساعات كبحضي يعني يسترون ويولي لكن راجح معها تصور هي أول وترتيب أركان تلصو ترتيبية ولسكسو حجيو كم على ما قابك لسكسو حجيو ذكرنا أنك أصو شيء قابك لسكسو رتبه ولسكسو حجيو حواي ركن معاي قبل النية تبقى حيامك واحد مرة استاق ففاتها الأخير الركوع الاعتدال حيابها صودا حواي ساسا لسو ترتيبنا والله سبحانه وتعالى